sida aad la socotaan waxaa bilaabmay xilligii qaboobaha diraacda xilliyada noocan oo kala ah sidii looga bartay waxaa kor u kaca xanuunada uu fayrasku keeno hargabka iyo wixii la mid ah oo xanuunka safmarka COVID-19 uu weli ku jiro dunida durba wadamada dhaca waqooyiga dhulbaraha ee ay ka mid yihiin wadamada reer galbeedku ee qaboobaha inagaga horeeyo uu qaboobuhu inooga daran yahay waxa laga soo sheegayaa durba inuu kor u kacay xanuunka COVID-19 taasi waxay inoo noqonaysaa digniin inoo sheegaysa inuu xanuunku inagana uu kor u kici karo inaga Puntland ahaan marka loo soo laabto xogtu waxay sheegaysaa waxoogaa kor u kaca in laga diiwaan geliyay magaalada Qardho taas oo aanu u aanaynayno inay keentay doorashooyinkii deegaanka ee golaha deegaanka ee dhawaan aynu ku qabanay saddexda magaalo ee Qardho Ufayn iyo Eyl taas oo dad fara badan isu keentay oo ama ha noqoto markii campaign-ka lagu jiray ama ha noqoto doorashada lafteedii markii la qabanayay ay dadku safafka galayeen oo safafka qaar ay aad u dheeraayeen taas ayaan u aanaynaynaa inay keentay in kor u kacan hadda aanu ogaanay waxa marka iyana wehelisa in culays laga soo sheegayo xagga COVID-19 ka ah oo dhimasho leh magaalada Buuhoodle taas oo wasaaraddu ay weegan ay ka hawlgashay u dirtay walxaha laga hortago ama lagu taakuleeyo dadka COVID-19 ka qaba sida oxygenada waxa loo baahan yahay marka in talaabooyinkii caamka ahaa ee laga hortagay xanuunka oo ay ka mid ahaayeen afxirka iyo nadaafadda iyo kala fogaanshaha in aan maskaxda laga saarin oo ay dadku xusuusnaadaan waliba xilligan qaboobaha ee aynu filayno in uu xanuunku kor u kici karo waxa kale oo aan ku boorinayaa dadweynaha meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan dadka reer Buuhoodle in ay talaalka qaataan xogta waxaanu ku waleynaa dadka talaalka qaatay magaalada Buuhoodle inay aad u kooban yihiin iyo deegaanka ku hareeraysan waxaan rabnaa marka in ay talaalka qaataan teamka heer gobol ee caafimaadku waxa aanu aad uga shaqeyn doonaa hadii la hayno iyagoo aanu iyaga kaashan doono in kor loo qaado qaadashada talaalka xarun kasta oo ku taala gobolka Cayn talaaladii COVID-19 waa yaalaan iyagoo waliba dhowr nooca marka waxa loo baahan yahay talaalka in la qaato waa waxa qura sida aynu marar badan ba sheegnay xanuunkan dhibaatada uu dadka u geysto lagu yareyn karo